يعني بل حسويديننا قاب نوعية أيين قراد دريمتك أو كبعين كرنا ونكرين كرنا ونهر مرين كرنا وأيو قراد دريمتكو وحلا لهذا والشيء قفكو هرسلين وجوليستو وحلا لهذا مسكح بدنيدادو كوما سهليسو أو كوما أقلانيسو أو كلياتا وحوي إن هرو مرتو بس لكن waxa kale ee ku damaanad qaaday inaad horumartaa wuxuu noqonayaa waa garaad dareemeedkaaga yani emotional intelligence oo macnaheedu tahay garaadkii dareenkii wada socda dareenku wuxuu ka yimaadaa qalbiga garaadkuna wuxuu ku jiraa maskaxda oo waa garashadii dareenkuna wuxuu ku jiraa qalbiga marka waa labadooda wada socda marka garaad dareemeedku waa la yiraahdaa waa fahanka iyo dareenka shakhsiyadaada iyo dadyoga kala baahiyaha haysta yani waa inaad adigu isfahamtaa dadka kalena fahamtaa xaaladaha ay ku jiraan salaano kale waxa laga yaabaa inaad qof waxa weeyaan dhibaataysan aan dareemin dhibaatadiisa dadyoga qaarkood dadka qulubtooda ma ilaaliyaan dadyoga qaarkood maaha waxa weeyaan kuwa ilaaliya waxa weeyaan dareenka dadyoga kale waa dadyow ku dhiirada inay dhaawacaan amba yani ka maadsadaan marka waa inaad awood u yeelato inaad garowsho leedahay oo u garaabi karayso waxa weeyaan dadka aad la dhaqmayso haddii ay taas ka maqnaato wiliga dad la dhaqankaagu uu hooseyn doona ilaa intaad ka saxaysid haddaba halkan waxaan ku haynaa 8 qodob oo aynu kaga hadli doono maanta ku saabsan qaabka qofku garaad dareemeedkiisa u kobcin karayo qodobka koowaad wuxuu noqonayaa ka fogow mahsanaanta iyo iska warqablaanta shakhsiyeed oo shakhsiyadaada baro yacni isbaro kana fogow in aanad iska warqabin self awareness ka waxa la yiraahdo يعني waa in kor yani u sareeyaa oo hada mid xoogan self awareness kaaga iska warqabkaaga nafeed waa inaad xaaladaad ku jirto aad si fiican u darsi karaysaa noloshaadana si fiican aad uga warqabi karaysaa si aad u xallin karayso caqabadaha kugu iman kara dhalin kara stress oo kale iyo waxa weeyaan dhalin karaya niyad jabka sidoo kale waa inaad barataa shakhsiyadaada si fiican u barataa taasi waxay ku sahli doontaa inaanad cidnaba ku gafin adiguna naftaada aanad ku gafin qodobka labaad wuxuu noqonayaa qofna degdeg ha u xukumin yani dadka ha xukumin markiiba afcaashay kugu sameeyaan oo kalaanba waxyaalaha la yimaadaan waxaad isku daydaa inaad baadho wixii keenay oo aad hubsatay ka hor inta aanad xukumin qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa isxakame markaad cadhooto ama aad murugo dareento yani wad xanaaqaysaa wad murugoonaysaa laakiin waa inaad xakameyn karaysaa inaad dagaalami karin aba aanad dhibkeysan karin aba aanad go'aano khaldan aanad gaari karin waa ka hor talaabada intaanad qaadinay go'aanada waa inaad ka fikirtaa go'aankaasi wuxuu keensan karayo oo aad si fiican u qiimeysaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo tan ka hadlaya xakameynta yacni dareenka amba cadhado kale wakiilaha kiina awoodda badan leh maaha amba yaqaano dagaalku maaha waxa weeyaan kiina marka ay yaqaana yacni sabaaxada amba yacni dagaalka amba yaqaana legdinta laakiin kiina awoodda badan leh qofka markuu cadhoodo kiina markuu cadhoodo حجية نفتيسة يعني معمولة ما كانت تاني واحد إن درينسين يسا أود وقف كلية هاي هدي وحكمين كرايو دريمياشي سكر ديونا عرضي مرجدة لا تعلق قدر كفراد وحنا قلنا يا عاودتك أنت عاد أو دو صدقنا تشوكت اللي بحيست هذا يعني صدقة اللي بحيست هذا واحد بدن بكاس عادي دون واحد كود دريم دون هذا جرنا فات إلهي بس سبحانه وتعالى يكون قدام بدافع دونا ودينك تاديكم مسيحي دونا سيدوك لو واحد كود دريم دون تا فرحات iyo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala kugu nimceeyay awood adiga la taan cid kale aad caawin karayso marka badso sadaqada aad yani bixinayso sidoo kale caawi dadka intaad awooddo caawi oo waxa weyn ha hakrin qofnaba caawintiisa adoo caawin karaya yani qodobka shanaad wuxuu noqonayaa xooji ruuxdaada cibaadada iyo istighfaarta ilaahayna yani waxa weyn dambi dhaaf weydiisto mar kasta iyo waqti kasta waa shay aakhirada iyo dunkaaga muhiim ah xoojinaysa ruuxdaada cibaadaduna sidoo kale waxa weyn wax ilaahay noo baro subxaanahu wa ta'ala inoo sheegay leeyahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilaahay wuxuu noo sheegay jinkiisa inaan abuurin wax kale aan ka ahayn inay isaga caabudaan mooyaane marka waa inaad ku dadaasho inaad cibaadada xoojiso qofku waxa la yiraahdaa ehlu cibaadadii waa qof dareemayaashiisa xakameyn karaya waayo waa qof ruuxdiisii xoogan tahay balse haddii qofku cibaadada ka gaabiyo ruuxdiisa way daciiftaa waana sababta qofku u dareemo isku buuqa dhibaatada iyo bilaa dulqaadka qodobka lixaad wuxuu noqonayaa fahan dabeecadaha kala duwan ee dadka يعني dadka la dhaqmaysa dabeecado kala duwan bay leeyin ilaahay sidoo kala radina u kala duway iyo muuqeen u kala duway dabeecadkeena marka hadii aad fahmi karaysid dadyo kala duwan waxa ku fududaan doonta in aad si fiican ula dhaqanto laakiin haddii dadka fahmi weydo dabeecadahooda way kugu adkaan doontaa in dad la dhaqankaaga wanaagsanaado taasna dhib bay kugu keensan karaysaa adiga laftigaaga qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa fikirkaaga wanaaji mar walba wax wanaagsan la rajee يعني إنه فكر كاج وناكسنا هذا عافمات كاج أي وناكشنيسا إنه فكر كاج حمادنا عافمات كاج دعوة عيسى سيدو كلا حرير كدتك أي بتقب كاج دنك حرير كدتك لا حرير يساد لا صاحب يساد شقين ندحمر يسنا ويوناكسن إنه فكر كاج وناكسنا هذا ومركز صادق وناكسن هذا حكايته إلهنا سبحانه وتعالى كرجيسو wax wanaagsan ka rajayso taasoo noloshaada qiimo u yeeli doonta qodobka sideed wuxuu noqon doonaa dareen qof walba dhibta haysata waxna u qabo inta aad awoodid oo macnaheedu ay tahay qof kasta dhibkiisa yani isku day inaad la dareento oo aad caawiso
haddii kale waxaa dhici doonta in adigana markaaga aad weydo yacnihii cid ku caawisa fursad kalena way ku tahay inaad qof caawiso dhib haysato ilaahay baa adigana dhibtaada waxa weeyaan kaa fiidi doona maalinka qiyaamaha amba intaad adduunka nooshahayba waxa weeyaan dhib kaa fiidi doona markay kugu timaado waxaan rajeynaya inaad fahamteen 8 qodob qofkii su'aal qabo isoo weydiin karaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu